madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu helinaya wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle iyo ammaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa tegay mid ka mid a goobaha raashinka lagu kariyo ciidanka si uu madaxweynuhu u hubiyo tayada raashinka loo karinayo ciidamada gaar ahaana ciidamadii dhowaan tababarka loogu soo xiray iskool buluusiya madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu u kuurgalay qaybta diiwaangelinta ciidamada uu ka jiray xilligaas mashquul badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa joogitaankiisa wasaaradda gaashaandhigga waxa uu soo dadajiyay isku shaandhaynta lagu sameeyay hogaamada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka sida uu sheegay wasiirka difaaca xukuumadda federaalka maxamed mursal sheekh oo shir jaraa'id ku qabtay wasaaradda gaashaandhigga sida aad la socotaan waxa isbedel lagu sameeyay ama reshuffle lagu sameeyay hogaanada xoogga dalka Soomaaliyeed hogaanada oo tiradoodii ka koobneed markii hore 23 ayaa hadda laga dhigay 13 hogaan teedi kale lagu soo biiriyay dhalinyaro da'yar ah oo saraakiil ah mudooyin 5 sano ugu dambeeyay dibadda wax ku soo bartay si ay uga mid noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed hogaanka wadanka khaasatan ciidamada qalabka sida saad la socotaan madaxweynaha wuxuu tababaro u xiray ciidamo kala duwan oo tiradoodii gaaraysay ilaa 600 oo ayagana loo diyaarinayo hawlgallada cusub sidaasi oo kale waxaan tababaro u soo xirnay ciidamada danab oo ayagana ka mid noqon doono hawlgallada cusub waxa kale oo la socotaan in u diyaargarowga uu ka duwan yahay diyaargarowgii hore waxaa la samayn doonaa oo madaxweynaha uu amar ku bixiyay in ciidamada hawlgallada aadi doono loo dhameystiro wixii ay u baahnaayeen oo ay ka mid tahay caafimaadka la helo cusbitaalo mobile ah la helo dhaqaatiir oo kuwa degdeg wax u daaweyn kara iyo kuwa qalliin gali kara madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo si rasmi ah u degay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waqtigiisa ugu badan galiyay ciidanka xoogga dalka oo in muddo ah dhismihiisa uu soo jiitamayay taasoo keentay in madaxweynuhu si toos ah arrimaha ciidamada gacanta ugu hayo cali baashi cabdullaahi wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho